ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ليال دمانتين سودة هذا waxaan jeclaan lahaa war farxad leh inaan idinla wadaago dhammaantiin oo ah gabadhii inantii yarayd ee shalay children's service ama hay'adda carruurtu ay qaateen alxamdulilah xalay saqdi dhexe ayaa gabadhii ilaahay gacanta ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ku soo wareejiyay. aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin intii ka qayb qaadatay ee jaaliyadii soo baxday reer Columbus iyo caalamka oo aad nagala socoteen. ilaahay ajir iyo xasanaad ha idin siiyo. waxaan si gooni ugu mahadnaqayaa qaybaha kala duwan ee jaaliyadda culimada diinka, dumarka, dhalinyarada, ganacsatada, si gaar ah lawyer Ismaaciil iyo gudoomiyaha jaaliyadda Xasan Cumar Xasan Dheere. khayr far badan Allah idin siiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal waa walaalkiin miskiinka alle oo idin leh warbixintan ayaan idinla wadaagayaa farxadda leh. xaqiiqatan waxaad aragtaan carruurteenna oo la qaato Sweden, Denmark, Holland, Canada, Maraykan, qurbaha meel walba carruurta la iska qaato. maxaa keena dayaca. jaaliyad isku xiran ma jirto, dad ka daba hadlaya ma jiraan, dad dhahaya annaga carruurtan qaadanayna ma jiraan, dad xataa xuquuqda haweenka iyo masaakiinta oo luqadda aan aqoon difaacaya ma jiraan, looyaro difaacaya ma jiraan. jaaliyad garab istaagaysa oo gabadhii waa la soo qabanayaa, hooyadii irbad baa lagu duraya, waa waalantahay daf laga dafaya, wax ka daba hadlaya ma ay jiraan. wax aad iyo aad aan uga naxay. waxaa jirta dad loo yaqaano protected class of citizens. boolisku hamoodina inay dagaal ku hayaan carruuraha iyo nacam waa qaadanayaan oo children's service ay la yiraahdaa jirta hay'adda carruuraha. laakiin waxaa jirta dad la difaaco ayaa jira. dadka tabarta yar برمجيتده وادفع شرع وادفع ما أصير صومالي وكله أو مدة لقينايو لكفسنا يو لدليو لدعيو لبوبيو لعيرسنايو وح ما يرانك سكجو رعيو ما لو أنا أقدر بحكي كذا مركو واحد كذا دل لو يقانون protected class of citizens. protected class of citizens وضد للدفاعيو وضد حقوق دودي أن دفاع عن كرين ولا الدفاعية حكمده والشرع وسجونية وإلى children باكمده عرورته وحكمده seniors ككمده دتك الدأ دتك وين وضيالك هو يوينك أنا عن اسكدلي إنه اسكد عينا يا كمده protected class of citizens وحكمده disabled persons. هرت ولا ليه وحنك عذر دارنا يا التليفون دي حتى وكل جرام واي يعني صار التليفون كي وايد نسيه يعني تليفون كي واقعي ماسنجر كستوكل واتساب كستوكل وحي وان كلا جران واي مرك مid aan fiiriyaan garan waay gabadha warkeeda xamda yasaan u kaalmeen lahayn anigu lacagna ma qaban oo yani dadka kama aruurin. dad badan oo dunida caalamka jooga Soomaalidu waa dad naxariis badan oo leh lacag baan soo diraynaana waan arkay. marka waxaan idin socodsiinayaa habkaan lacagta ugu soo diri lahayn oo ah xamda maxamed axmed xaaji saciid akoonka magaalada Columbus inaad gabadha ayada laftigeeda lacagteeda ugu soo dirtaan. ma rabna wadaad ba lacagtii loo dhibay oo lacagtii wadaadku waa kala reebay, ama hebel baa loo dhibay oo lacagtii waa kala reebay. gabadha guri waad u gadi kartaan oo waad dejin kartaan oo waad barwaaqayn kartaan oo garaad u gadi kartaan oo masaaruuf baad u qori kartaan. Allah idinka ajarsi. waan ogahay dad fiican natiin, laakiin gabadhu waxba ma qabto. laakiin guddi kor joogto oo ayadii waardiyeeya oo ilmihii warbixinta soo idinsiinaya. horta aan tan ka hadlo marka walaalayaal protected class of citizens dadka sharcigu sida goonida u difaaco oo tabarta yar oo birmageytada waxa kamid ah carruurta oo ah tii hadda booliska waa la wacay ilmada dayacano neglected child balda ilma la dayacay. marka sharci boolisku assessment buu sameynaya wuu iimaanaya wuu fiirinaya. laakiin dhibka jiray muxuu ahaa gabadhan maxkamad kama qaadan ilmaha sidii aan kula doodayay booliskaba ama naagta aan kula doodayayba. waxay rabeen marka meesha ay taagnaayeen waxay wacaysay supervisorkeeda oo ay leedahay naag waalan oo ilmaheedii aan dayacan yahay ayaan ilmihii ka qaadan. warqadii baa la diyaarinaya. marka warqadaa la diyaarinaya boolisku waqtiga dheer uu meesha uu taagnaa warqadaa la diyaarinaya. warqada booliska marka loola imaanaya warqadu marka boolisku ilmihii waa qaadaya xoog buu ku qaadaya. يعني برتا كيس قالوا ديارني إلهي بامرك نوافجيي
inaan yur ka dhahno haddii ilaahay ku idmaayo dhurwaayadii aan ummadda isu soo baxday idinkuna aad soo ducaynaysaan caalamka aad joogteen marka ilmihii xalay saqdi dhexe ayaa gabadhii ilaahay noo soo celiyey looyarka ismaaciil oo maasha allah nin dhalinyaro ah aad buu u dadaalay jaaliyaddu waa dadaashay guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed xasan cumar oo xaqiiqatan yacni nin jaaliyadda aad ugu dadaala oo isaga iyo looyarka anii kale waa labada ninoo aad ugu dadaasha xasan cumar qofka lama xaqiro bani aadamka xabsiyada ninka taagan waa isaga guryaha hooyooyinka laga saarayo qofka taagan waa isaga qofkii waa argagixisa la dhaho qofka taaganoo qof kasta u imaanaya waa isaga wadaadkii la xiro qofka u taagan waa isaga laakiin jaaliyadii waa burburtay jaaliyadii waxay ku burburtay qabiil bay ku burburtay qabiil baan ku burburnay waxaan gaarnay in East African Community jaaliyad la yiraahdo oo Ethiopian ah inay ku shaqeysato magaca jaaliyadda Soomaaliyeed kadib markii jaaliyaddii Soomaaliyeed qabiil ay kula tagtay xagga reer fulaan xagga reer hebel ninka reer hebel laga daayay reer hebel xagga u baxeen reer hebel xagga u baxeen sida ka jirta Yurub oo kale meel walba waa lagu baabaa marka yaa victims ah ballaankii iyo dumarkii iyo carruurtii baa victims marka dadka sharcigu difaacay waxa kamid ah carruurta marka waa la difaaca walaalayaal wadanka kan Mareykanka inaguna carruurteena inaan difaacno waa loo baahan yahay oo qax aan ka dayno oo nabad darrada aan ka dayno oo qabyaaladda aan ka dayno oo hubka aan ku xambaarayna aan ka dayno oo ilaahay uga baqno subxaanahu wa ta'ala nabad baan u baahannahay seniorska waa la difaacaa oo sharciga qaanuunku waa difaacaa waxaa la difaacaa disabled persons waa dadka loo yaqaano protected class of citizens dadka sharcigu sida gaarka ah u difaaca Mareykanka dadka curyaamiinta ah ama maskaxda curyaanka ka ah ama xubnaha ka ah ama indhala ama dhagala ama lawala ama waa difaaca sharcigu wuxuu difaaca emotionally challenged individuals dadka maskaxda laga gumaysto dadka maartay yani ciilka iyo carada la baday dadka maartay lagu tuntay dadka xuquuqdooda inta laga dhacay laga inkiray sharcigu difaaca nin baa nin dhacaya dilay geeli soo dhacaya loo soo dhacaya ariga soo dhacaya landeerana baa lagu leeyahay nin baa loo imaanaya dhirbax laga daaya beerka laga garaacaya shan baa lagu tirinaya aabi hooyadii hortiisa lagu dilaya halkaas marka sidii yaanyuurada saasiya gabar baa ninkeedii lagu hordilaya haday afka kala qaadana baas baa afka looga tirinaya يعني dadka marka qofkii marka halkiisan dumar badan oo facebookyada ka qayraya oo la saasa la ii galay sharci waa difaaca ama mid la kufsada haado ama mid la boobay haado ama dad la boobay haado ama dad la bir la qaystay haado ama dad beeroodii guriyooda la qaatay war sharcigu qof kasta oo yani maskaxdiisa iyo aqligiisa inta la dhacay la boobay loo xog sheegtay haddana emotionkiisa iyo dareenkiisa iyo damiirkiisa la dilayo sharcigu waa difaacay waa mayeeraanka dadka iska dhacayo oo iska dilayo iska boobayo Soomaaliya oo dhan marka dadkaas u badanta meeqa qof baa la dilay meeqa qof baa inta la dilay waalidkood hantidoodii la dhacay meeqa qof baa maartay ilaa hadda hantidoodii la haysta meeqa qof baa maartay dilay ku idmaayo maalin walba aabihi la dilaya ama hooyadii la dilaya ama la qaxinaya ama maartay magaalooyinkeena Soomaaliya oo dhan meeqa maartay gabar intalan miskiin ah baa leeyahay yani waa wariye qabta adilay xira ninka kan waa wariye qabta ku tuura ninka kan wuu hadlay ku tuura yani dhirbax laga dalaya dadkii sharcigu marka waa difaacay dadka loo awood sheeganayo ama qofka inta la iska xirto sanado la iska haysanayo hadda waxa weeye waxyaalahan ka dhaxay waxa kamid ah kuma farxin in magaalada Boosaaso la weeraray hadday sayeshe erayadii 400 oo maxbuus waxa la yiri oo maxkamad sugayaal ah nacam in badan oo kamid argagixisa waa dhici karta inay yihiin saraakiil inay yihiin argagixisa laakiin haddana in badan oo aan case-koodi dhinac loo tuurin waxaan codsanayaa marka dadka xabsiyada laga buuxshay halka kan Mareykan 24 saac gudahood qofka maxkamadda waa in la keeno dadka maxkamadaha ilaa iyo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Burco iyo Caabud Waaq iyo Buulaxaawo iyo Garowe iyo Galkacyo iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo meel walba iyo Dhuusamareeb war dadkan maxkamadaha inta xabsiyada laga buuxisay arigii la iska xareysanayo maxkamada la keenaynin sharciga iyo qaanuunka iyo diinta islaamka waa difaacday dadka maxkamadaha la keeno qofku sharci wax ku cadiyiin hal ugu cadeeyo waa la shabaab ku cadeeyo lama cadda Soomaaliya sida waa la tuunsan yahay qofka kan Guantanamo Bay la iska xareysanaya waa khalad
marka sharcigu dadka uu sida gaarka u difaaca kamid caruurta children seniorska kamid disabled persons dadka curyaamiinta maskaxda ama jirka emotionally challenged individuals dadka inta loo xog shigto cabsida la geliyay oo maaragtay aan isdifaaci karin sharcigu ka difaacay religion dadka diinta wadankan waa lagu difaaca anigu muslim baan ahay intii diinteeda igu ceyrsanaya sharcigan maraykanka wuxuu qabaa in laga difaaco qofna diintiisa kuma ceyrsan kartid waa inaad marka dadka nabad gelisaan dadka Soomaali Kiristaanis sheegta oo inta soo fariista Ilaahay caayahaya oo Nabi Maxamed caayahaya oo Quraanka caayahaya oo diinta caayahaya xaq uma leedin waa in Facebookooda laga report gareeyo oo aad ka xirtaan hadii ay ku idmaayo taas sameeya hadii ay ku idmaayo ayagana in waxooda laga caayo nooma banaana ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أنبياء أي عابدان النبي عيسى وجعلنا والنبي إلهي عبد الله ورسوله قال إني عبد الله نبي عيسى أدونك إلهي بانا هنرك يا صومالي فلا ورسوا الله يكسر سلحنا نكونوا فلا ورسوا قال هذا هو احنا قلنا حوي وحاكلوا الشرع وضن كان مريكا قال يا كلر dadka midabka lagu caburiyo ama waa madow ama waa cadaan ama waa gaduud sharci waa difaacay marka people of color sharci waa difaacay marka dadka madow wala iska tooganayo ayagana si gooniya sharcigu ilaaliya hadii ay gudnaan race qofka yani qabiil lagu ceyrsado sharci waa difaacay marka nima landheer uu leeyahay dadku iska leeynaya qoryaan haystaa buu leeyahay ama hubban haystaa ama leeshibeelad baan haystaa wallahi waa in dilayna waa in leeynayna no sharciga afka ka garaacaya qabiilka landheeraha تانجيا لقصي دينية شرعية كتمرية دولتها كتمريسة no one above the law عداني مدو ننكسر هي شرعية مجرم أما وايت سوبريزيوم ده أما بلاك رئيس ده عد شرعية كسرعية نسمى مجرته no مركا كلر كقفك الوع عبرونه يو أما قبيلك أما رئيسك هذا رجع عليه شرعية قفك مسكين كدفاعية سيدو كله citizenship كله sharcigu dadka caynkaas matalan ba violation uu sameeyay Trump oo kale oo yiri dadka dalka Mareykanka ah dad gooniya oo muslimiin ayaan u diiday waa sharci darro sharciga difaacaya dadkaas waa sharci darro shaqada dadka gooniya kama shaqeyn karaan wadanka u dhashay no marka waxa weeyaan war dadku sharci badan baa leedihiin oo xuquuqda sharciga uu dalku u ilaaliyay marka waa inaad barataan hadii ay ku idmaayo veteran status waxa loo yaqaano waxa weeyaan waa dadka halyeeyada ah فيريا شرعي مريكان سجونية يا دتك هالجميالك الدفاعي هالجميالك سجوني الدفاعي هالجميالك إنما كان دفاع عنه يا ووالي هيو وكان إيو ورا أنا وهالجمانة هيو خلد من مسكين قال الله يداس ما نفعلنا هيو أذون هالجمات كاكلنا وهالجمي دولة ديننا وهالجميال يا ولاش الصومالية وحوق دلكنا وهالجميال دولة ديننا عندنا دعاية رخيص بنت أنك دينه دلكنا دورشها هلا آدو سيستم لا يقانا هلا آدو هاي حاكله ايربورك انا لودي علي مهدي بان wax ka soo dhaweyn lahayno nimankii musharaxiinta aba hubayna la galan airportka loo diiday waxaas waa ceeb meydka cali mahdi yaan wax ka soo dhaweynaya hubban la galaya waxaas waa ceeb kaalay qabuuraha imaada kaalay ku tukada janaaso la yidin ma diidin sheekh shariif waa taagna ma sha Allah madaxweynaha garabka isku haya yani ما شاء الله واتقنا عبد حاش ما شاء الله مدحوينا قرب كسك قدوميه مرسل waxa kasta meydkii baa xataa la siyaasadeynay war ilaahay ka baqa marka waxa weyn walaalayaal dadka xoog dalka ee dalka u dagaalama sharcigu si gooni u ilaaliya halyeeyadeena qaranka iyana la ku dirin qabiil kasto ay yihiin haramcad gorgor nisa hadii ay ku idmaayo danab booliiskeena war ciidamadeena hadaan nala ka dacaayadeeyo ma ciidamada Uganda rabnaa war ma ciidamada Tanzania rabnaa war ma ciidamada Kenya anaga shakina loo gelinaya يعني لك جلينين وسجوني أقول عليها dadka loo yaqaan protected class of citizens waana mid ugu dambaysa waan gabadhii baan warkeedu soo gudbaya genetic information dadka maaragtay jiinkooda ama genetic matalan ba aaba wuxuu dhalay ilmahaas cudur la iska qaado oo ilmo aabihi ka soo gudbaan oo ilmaha u gudbaan marka in la iska cirsado aabihiisa kansar qabay ama waa laga fiican yahay walaalayaal qof cudur haya in lagu ceyrsado oo lagu dilo
ولا ليال معها دين إسلامكو وحين فرتقنا قلنا حريصنا دتكاس أردن واردكي دتك جبوبي الضعفاء دتك دتك مساكين والصومالية نسقر منه يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء صومالية جور عايز كدينه صومالية ولا لنا إيه البنا سكينا صومالية قبيل يبين ينين الكل أنت كسر رجال كان يدين صفرستا ضرب بلايا دعدي ور حساسي وحاجة يدين تلمسه نبض بان أبهنا دجال سكية مرة بنو 2001 منا دجال مرة بنو ولا اللي مي عدالة إن الله يأمر بالعدل إلهي عدالة دون فري حرمينا دلكينا دولة مدينة دعاية الرخيص كبينته بالتوجيه مالا كلام هاوس فيسبوك تويتر ماسنجر ويب سايت حبايد انت رميسه الهي كعب صدر ان هذا السفر بان هي waxaan u socdaa gobol kale oo gabar ayaduna sidoo kale hadii ay kudmaayo baan u socdaa iyaduna ninkeedu hadii ay kudmaayo ay kala tageen oo ilma carruurna dhashay ilaa 5 marka ama 6 hadii ay kudmaayo waxa weeyaan oo safar baan galayaa ilaahayna iga ajarsiyo walaalayaal marka waxa weeyaan hala isu gurmado gabadhii shalay aan qaylinay dhawaaqnay booliskii la doodnay ummadii jaariyadii aan hadii ay kudmaayo ku dhawaaqnay idinku aad sheer gareyseen ilaahay idinka ajarsiyo oo meel walba aad gaarsiiseen warkii si degdeg ku faafay looyarkii baa soo baxay hooyadii baa soo baxday ganacsadii baa soo baxday jaaliyadii baa soo baxday kulligiin baa maartay soo baxay fiiri maxaa ka dhacay waxaa dhacday dalka kan dadka xukuma waxa loo yaqaan we the people shacabka 9 nin oo Soomaaliya isbaaro uma dhigan karto doorasho ma diidi karaan nabadda ma diidi karaan horumarka ma diidi karaan alla kacabsiga ma diidi karaan wixii lagu heshiiyay ma diidi karaan nin gudoomiye gobol diiday in ma dhihi karaan wallahi ma dhihi karaan waana la saxiixayaa kulligoodna waa imaanayaan waraaqina soo gaaris already wala saxiixay waa iska formula nin diidi karaan mar ninkii diidana spoiler way qaswade doorasho la aadaya ma maqlaysa ciidanka xoogga dalkane waxay xaq u leeyihiin iyo dawladdu amniga inay ilaaliyaan meeshii xabad qush ka tiraado meeshii nin maafiya oo xabad ridaya in la qabto waajib weeye in dalka la ilaaliyo waajib weeye laakiin yaan dooranaa qof walba ninka adigu u codaynaysid sanduuq ugu rid walaalow Soomaaliya ina adeerow tolow walaalow kale laakiin dalkan gubaynaa no ciidanka xoogga dalka ha ilaaliyeen hana la ilaaliyo madaxdeennana xurman wayna waa astaan qaran 15 bisha 15 bisha maxkamadii badda inoo taala badeennina aanu dagaalanayna halka mashquulin isla maalinta shirku furmaya oo Soomaalidana waa 15 yaani dawladaha dabada ka wada nakayati ninkan James Wan hoosta ugu jirtay yani nimankan gobolada oo halka gaaray waxa gaarsiiyay xalana laga gaarsiiyay beesha caalamka gaarsiiyay Yurub ba gaarsiiyay waan qana dawladaha Yurub ay gaarsiiyay kaas dalkeena aan difaacano Yurub malahan America malahan cid kale malahan anaga leh ma maqlaysan dalkeena aan dhisano dawladeena aan taageerno amma yaan doorana walaalayaalow doorasho la aado dhibkana hala joojiyo daayada beento raqiiskana hala joojiyo ilaahayna laga boqo dumarkii ciyaalkii dhalaan waa dayacmeen rabbul caalamiin laga boqo anagu qurbo waa ku dayacnay odayaal waa kullu ciyaal suuq ma ku noqonay dumar ha sheegin mas'uuliyad ma jirto nin walba gabadha caloosha u buuxinaya markaas ma yaqaanaba waxa weey waxaan maqlay gabar dhalinyaro shalay markaan cajalada aan duubaynay meeshii la isugu yimid waxay leedahay anigu geedkii sharoota baan ku xirtayba maba u socday tir guuriga carragaalaba carruur ku dhalimaayay tir waa tala fiican way taasuna haddaan wax mas'uul u jirin oo carruurtii kala korsanaya oo carruurtii kala warqabaya oo ilaahay kala baqaya waaba xaraam carruurta inaad halkan ku dhishid markaas Soomaaliya ku dhal adigu nin ragada tahay gabar mas'uul ah dad guursanaynin oo ilaahay ka baqaysa shawada ilaalso Soomaaliya ku soo dhal xagga geebiyaaga dilay gudmay حمدة وحين وقبها قرمد حمدة محمد حاج سعيد وهير بوصاصة قرمد بين وقبها أنت وحات فرتان حوالة ده مقعيدة كالصقر مقالة كولومبوس هاي موالنا حبض مقبط وقبر أموله خاطير بدن بقى يصوعي خاطير تصوح أي شيء أموله عذر كل عاجرة وسلب بوقان أمولو في شمال القرى والملايين أمولو إذن كان يقانا كبدو حنانا مهلين عد أمول بحس مهلين إهل يقرابا كان حس مهلين رنتا تاني شيء إهل كابناك صورك بوليس كان وعي نعم
هذا يسكب بغضي المهنة ظروف بقى مقتي واو صومالي بقى وعي قربيه صومالي بقى كوكو حراية ككولاد ساكو حراية ودات كابولس كوكو وعي مساجد كوكو وعي حلاي هاي إلهي لقى بقو ومدوها استاكتو كبدا مركب مقعد وحال لها أنا قد تضبطن بقى الصوعي هدان صعدا قبل كلام صعدا والله أنا إيران بين دين شيء هدان صعدا لعقنا أنو بقى بنينين لكن مقعد الصغر حمد محمد أحمد حاج سعيد قبضنا كردبان مقالة كولومبوس قبل كأهاي نعم لاير كإسماعيل وكلا قدوميها تاليات دوكلا حسن عمر لما أنت تخير الله سيو dadka ehelka ah nacam lacagtaas loo aruurinayo in meel ammaano ay gasho oo gabadhii laftigeedii gabadhii xalay gabdha Soomaaliyeed baa qaaday guri baa la geeyay fiican in loo qubeeyay baan aaminsanahay in dharkii laga bedelay in gabadha niyada loo dhiso dahab loo xiro loo labiso loo xiniyeeyo niyada loo dhiso ilmaheedii ay aragto ilmihii waxa lagu wareejiyay walaasheed ولا شيء بالوريجي ولو خلط أهيد مركو ربع إهلكو إني قبل أقول كسارة لكن هبريرت بالوريجي هبريرت مركو هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم هبريرت هاي مركو تاسواني نقول كل جن الحمد لله يعني هبريرت بقى قبل لي صغير كايد قعنت كويسة قبل لي والسول بدبادي ما هو قبل له المها أباها علي أنا ما هو عيد الصومالي كيهين لكن نن إسكاله يوتيوبر oo iga soo wacay Minnesota iga soo wacay oo aan jeclahay isla beesha ma jirteen inuu yahay oo ehelka iyo tolkayga ah wuxuu ii sheegay aabaha ilmaha dhalay inuu ogaadeen yahay inuu ii sheegan jeclahay marka gabdho ogaadeen waxa soo wacay wayba ilmeeyeen waxay dheheenba alla iga inantanadii bay dheheen marka waxay dheheenba waa gabadhaas waa garab istaagnaa bay dhahayn marka qabiil gooniya maaha ama hooyada dhashay haato ama aniga haato oo ah miskiinka alle oo ah ninka matala gabadha oo aabaheedo kala ah oo ah walaalkeed oo kala ah waxaan leenahay marka walaalayaal qabiil maaha anagu qabiil ma naqaano laakiin kaliya waxaan inkugu sheegay li taarafu sababto dad badan baa ii soo qoray waaya gabadhu yaa dhalay ninku yuu yahay taleefankii waa qarxay waxaan hadda arkay walaalkay kabtan ayuub soo wacay khayr allah ku siiyo jazakallahu khayr walaalkay waa hadli doonaa insha Allah inkastoo safarna aan ahay ولكن كسوعي إن شاء الله. مركب ولا ليال خير الله ينسيه. هلو جروب حمدة وحيوبها أنت جوري إن أقدنه. جوري إن أقدنه. المهد اللي قاعدنا يو. كبرنا جوري وأقدر كرنا. جوري أنا أقدنه. هو يوين ككلاء الصوماليات الشنطة قارضات كل بنه. هو يدلانك إن لو جروب مده. رد الصوماليات بس واقعي. إلى هذا أنا بدأ جديدا. السجر مدى. علوم مده وحنكله سجارة. إلى هيك بقى. ولا ليالو منبرك إذن كهست النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذن كهفردية ولا ليالو لعقتي صومالي شايف كنا يكون شرتاه مالك لما شرت حوالي ده نكه يستوى وداد شركة دوي نكه يستوى وداد ان دهبشيل إيو هرمود إيو على بركة إيو تاج إيو وح يستوى وداد ولا ليالو مال والبقى شرتان إلى يجدون أبار بالله بابايا ورد العقتان وتقدم نيسان إلهي كبقى مساجد يدا العقد لو أروريني إذن كاتشوه برنامج هويوينك يدلانك اللي قد دفاعي وانا تمسان المهن أتكهر إيسان نك توجيه وحاس المهن لما قاعدن كرو طب اسكو حيران هدي لا يوروب ولا أمريكا لما قاعدن كرو لكن وحان جرين جاريات اسكو حيران ما جرتو ضد ديرن أو ديكرا بوليس حقو مالي المهي قاعدين بوليس بحقوله ياكل بوليس بحقوله وما له حق نقاط وما له لكن ماله ضد هاللي كرام ماله وما ضد كي يورم قرد أساس لو ركنية صوماليا ضد كي ما هاللي كران سقالني مشرحت مشرح مدعوين أنا السلطة أود الله محيط مشرح مدعوين أود ماله حتى ورقاق يأرشي يقول لي ما قبل مشرح بانا أود سامري متيد وبين كخيب قال شركة سكفريست قوي بتسوي يلا هذا لكن صحيح عيال متين ظلمي قد دايا مركا يقدر 4.5 فحلوه غيبصده إلهي كبقى اتقوا الله نبض ما ربنا نقو ما كانت شعل رقا الصوماليات اتقوا الله كنت شاقينا مشرح من حوين أنا ما ود الله معايا الشعب أنا والشغالة يقدر تاني دير من حوين ربعين نقضي شغالة من حوينها يدي بتوي معناه يدو مشرح وين تاس
ولا ليالو وحان رباه إن الشقالة نقضه oo shaqada aragtid maxay tahay waxaan rabaa madaxweyne shaqada madaxweynaha inaan qabto madaxweynahan idin noqonaya shacabkaygow i doorta waa inta macnaha musharax arjigi lagama qaban guddiga doorashada arjigi kama qaban laguma soo baarin dambiile inaad tahay shuruudii ma soo oofisay lacagtii fiigayd ma bixisay shahaadadii inaad musharax tahay ma lagu siiyey maya qabqabla tahay marka dagaalyahan baad jirri baad ilaahay laga boqo sharciga la ilaaliyo ben way musharax waxa la yiraahdo ma jiraan شرح باناي maxaan ku dheera xabku ma dheer shacabo waxaan leenahay marka walaalayaal dadka dhakhtar Hanad oo asaguna gabadha ilmaadeer yihiin oo nin beesha Cali Suleymaan ay soo wacay dalka Sacuudiga doctor aad baad u mahadsan tahay adiga dhakhaatiirta kale iyo dadka Soomaaliyeed ganacsatada Sacuudiga jooga jaaliyadaha Imaaraadka meel walba jooga dadkii way soo wacayaan ilaa Soomaaliya ilaa Boosaaso ilaa South Africa ilaa Nairobi ilaa Europe baa laga soo wacaya gabadhaan yaan loo kala harin xamdan yaan loo kala harin haddaad nasab tihiin aniga lacag jeebka igu gura idinma dhihin dumarka Soomaaliyeed lacag aruuriya shanta qaaradood khasama inaad aniga ii dhiibtaan no wax badan baad aragteen nin inta lacag loo dhiibay lacagtii meel ay aaday la waayey maya anu contributionka waxaan bixin karo ilaahay dartii aan u bixinaya diyaarna waanahay wixii aan baxsadayna Allah iga ajarsiiyo wixii aan baxsanayna diyaar baan oo inaan baxsado laakiin waxaan idin leeyahay walaalayaalow ganacsatada magaalada Columbus qof walba lacag isku qor ilaahay ka baqa gudiyaha la sameeyay degdeg loo sameeyay reer Columbus waa ceebaysantiin ganacsatada dadka ehelka aan si gaar ah anu ehelkan kamid ah si gaar ah shanta qaaradood Xamda Maxamed Axmed Xaaji Saciid oo nin ganacsado Xaaji Saciid reer Boosaaso u dhalay reer Boosaaso idinkuna qaaraanka waa idinku qornay soo gurmada gabadha magaceeda ku soo qoraysaan laakiin dadka gudiga u soo sameeya idinku u soo magacaaba soo baara dadka wad baari kartaan dadka jooga ee gabadha gacanta ku haya ee ehelka ah ma aha qof iyo laba iyo saddex ma aha dad gacan aamin ah in lacagta loogu dhiibo gabadha ama ayadu inta dilay kudmay lacagtii aysan xogaa isku buuqin xogaa dilay kudmay isku khafifin lacagtii ama maaragtay nin wadaada loo dhiibayo meel ay ka dhacday ma jirto no technology baa la gaaray gabadha magaceeda ku soo qora gabadhaas iska leh laakiin guddi telefoonada soo waca guddiya loo sameeyay ceeb ma magaceeda ku soo qor xawaalada soo sheeg dhib ma leh hadii ay kudmaayo magaalada aad joogtaan iswaca isu taga dadka Columbus soo wac lawyer ka soo wac jaaliyada Soomaaliyeed soo wac lawyer Ismaaciil lambarkiisu halkaan waa nin lawyer weeye nambarkiisu waxa weeyaan lawyer Ismaaciil oo beesha Cali Suleymaan asagana nambarkiisu waa idin siinaya waa 648 waa lawyerka Ismaaciil khayr Allah siiyo oo dadaalay gudoomiyaha jaaliyada Xasan Cumar jaaliyada Soomaaliyeed Columbus ayada nambarkeedu waxa weeyaan 6 mar labaad jaaliyada nambarkeedu waxa weeyaan 6 Somali community in Columbus Ohio 6 waxaan ku celinayaa lawyerka nambarkiisa Ismaaciil oo nin beesha Cali Suleymaan oo Ilaahay khayr asiiyo ahaa jaaliyada dhanba gurmatay xalay saqdi dhexe gabadha la soo celiyay gabadha habriyarteedna lagu wareejiyay fariin laga qaaday gabadha la soo baaray lagu wareejiyay gabadha habriyarteed bahays ma ogol yahay nambarka lawyerku ma diidana nambarkiisu waa gabadha ehelkeeda ehelkii oo dhan baa soo wacaya ilaa Sacuudi Soomaaliyeed baa soo wacaysa gabadha lacag baa loo aruurinaya lawyerka iyo jaaliyada iyo ehelku iyo dhamaantiin is soo waca ninkii lacag u hayowna aniga fariin waa iga tagi kartaa laakiin anigu safar baan ahay gabar kale oo Soomaaliyeed oo muslimad ah ayadana lagu xadgudbay yaan u 3 saac ilaa 4 saac yaan hadda safraya gaariga waxa ii staaran Ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaali meel kasta hal u gargaaro dhalaanka iyo hooyooyinka loo gargaaro meel kasta joogtaan Xamda Maxamed Axmed Xaaji Saciid oo reer Boosaaso gabadha dhalay nin ganacsato caana dhalay magaceeda lacagta lagu soo qoro Columbus Ohio dadka ehelka aana oo lacagta la kor joogteynaya ama mas'uulka uga noqonayaan lawyerka waa idin sheegay iyo jaaliyadii iyo gabdhaha meel kasta dadkii lawyerka in siin doona informationka laakiin guddi loo sameeyo lacagteeda aan lagu cayaarin
waxaan aaminsanay gabadha 100,000 iyo ka badan in loo aruurin karo waa loo aruurin karaa waa idin siiya numberka guri ha loo gado caafimaadkeeda lagu dadaalo quraan ha la saaro niyada loo dhiso ha loo qubeeyo make up loo sameeyo iyo xinigi iyo huruudi anu waxa rijiga la ismarinaya maahane laakiin hurdo badan ha qaadato umul weeye oo ha la baanto faytamiinada ka badan iyo ha la siiyo ilaahay ha looga baqo dumarka mid walba markay dhashaa ayadoo mandheerteedii aan laga jarin baa ninkuna ka cararaya eelkuna banaanka dhigayaan wax u dooda iyo wax wadlana ma jiraan walaalayaal marka safar baan hadda waana baxaya saasa inkaga tagay ilmihii saqiirka xalay saqdi dhexe ayaan soo celin hawshii aan qabanay aad iyo aad ayay u fiicnayd dad baa ka xumaa walaalayaal ha ka xumaanina hawsha aan qabanay waa fiicnayd hawl fiican bay ahayd idinkuna waa ducayseen waana soo gurmateen isu gurmada Yurub boolis inkama qaadan karo isu gurmada علماء صباح عامها صباح الشعب كصباح إذن كون لما تجي سنين وشالية النادي وإلماء النادي وعروض النادي ده هذا أقول ماذا لا يركان لا ماذا يا إيدين جدا وعن عصاني أسيد وكلام إلا السماية حرمها لو حنا نيو rehabilitation centers علماء شالية دو على ستكو عروض اللي يردي طبعا كن ضد الأج أو اللي يرى أبغى كحيرا من الصوت مركز سامد والبريكور كلا خربية مركز سامد والبوحل إربان القدرية انت قبلود اربط لو قدرو لي waa waalantahay tii wax yar tiraadaba irbad baa lagu duraya waa waalanta ilmihiina waa laga qaadanaya kaliyana waa laga baxaya waa la gaalaysiinaya xawayar marka isu gurmada meel kasto aad joogtaan Yurub baa lagu leeyahay ilmihi war lama qaadanayo laakiin jaaliyad ma jirto America waa la qaadanayo war jaaliyadii hal midoob war culumadii maxaa ku dhacay war kuwa dadka soo qixinaya ilaahay ka baqa marka waxa leena walaalayaal information kan wada helaysan xaqiiqatan yani hadda information waa in si basic Ismaaciil Sawca guddi gabadha loo sameeyo lacag loo aruuriyo lawyerka oo gabadha in adeerkeeda waa in siiyay asagana guddi iyo loo sameeyo lacagtaasna si amaana magaceedana lagu soo qoro ilaahayna khayr ha idin siiyo lawyer Ismaaciil Sawca wixii information waa kaas waa idin siiyay mar labaad lawyerka numberkiisu waa 6 4 4 نعم ضد بدن باي سوعي او ديار ولا اني دقاله iyo lahanti ay gabadha ay la garab istaagaan khayr allah siiyo walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala sidii aad warkeeda gabadha u gurmateen jaaliyada Columbus sidii u soo gurmateen jaaliyada qaybada kala duwan gudoomiyaha jaaliyada Xasan Umar lawyerka dumarkii ganacsatadii oo soo gurmateen shalay khayr allah siiyo idinkuna meel walba shalayta waad gaarsiiseen ilaahay aan ka ajar siiyo dadka iminka gabadhii haya hooyadii ama habriyarteedo ilmihi hayana ajar ay xasanaad Allah siiyo inta gabadhii ganacsatada iyo eelka iyo meel walba dhaqaalaha aruurinayo ilaa Yurubna waa idin la socdaa ajar Allah idin siiyo soo gurmada khayr Allah idin siiyo lawyerkana soo waca miskiinka Allahna waxa weeye telefonkii waa iga waxaysmay lacag baan ku soo diraynaa waan idin siiyay informationka magaceeda ku soo qora gabadha lacagteedana ha loo ilaaliyo lawyerka iyo guddiga kale ha loo sameeyo lacagteeda iyo xaqeedana ha loo ilaaliyo ilaahayna ha looga baqo subhanahu wa ta'ala gurina ha loo gado hana la biiro masruufna ha loo qoro ilmaheedina ha loo socoliyo insha Allah ta'ala aad iyo aad baad u mahadsantiin dalkeena iyo diinteena iyo dadkeena Allah inoo badbaadiyo ragga Soomaaliyeedna aqliga Allah ku soo celiyo iimaanka Allah ku soo celiyo war xumata shiilka iyo kuwa naar afufka ummadeena isku gubaya isku darayana ilaahay subhanahu wa ta'ala haanu iyo dikran ummadda Allah ka qabto ragga musharaxiintaana war xishooda war ilaahay ka baqa ruuxa siyaasi ma ah ruuxan waa mooryaannimo war heshiis baa la galay hadda la saxiixayaa doorasho u diyaar garooba musharax aniga waxba ima dheer anagu ma dheeri waa idinka tagay walaalayaal khayr baan idinka tagay ilaahayna hawshan hadda aan u socdo ayadana oo safar dheer Allah igu guuleysiyo wabillahi tawfiiq wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina aamanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri markaan qaylinay isu gurmadnay ilaahay barinay ilaahay waa noo hiliyay wa kaas hal habeen gaalada kuma dhaxlin hal habeen kuma dhixin habeen barkiiba maaragtay laga shaqeeyay la soo jeeday la orday laakiin sharciga waa in la waafajiyo yaa lagu wareejinaya ehelkii faray laga qaado la baaritaan la sameeyo background check laga saxiixo waraaqo degdeg loo gudbiyay waa procedure la maro san idin sheegayna sharciga caruurta waa ilaaliyaa waxa la protected class of citizens hatta booliska laftiisa aad u mahadsan yahay sababta caruurta wadanka waa la difaaca hooyooyinkana waxaan leeyahay shiishada iyo xishada iyo darogooyinka iyo walaalayaal iska ilaaliya oo yaan idin siinin oo nimankan daroogada cuna iska daaya oo ka dheeraada oo maaragtay hadii ay ku idmaayo yaa la idin balaynin oo maaragtay is ilaaliya oo caruurta dayicina oo ilaahay uga baqa oo sabra oo gabadhii dhibaataysanay jaaliyadaada dadkaaga u imow dhawaaq noo imow aan kula gurmanno ha qarsanin tii ilmaha laga qaadanaya jaaliyada u tag dadkaaga u tag waxaad qarsataa waa ku qarsadaan
انت سنة كتغي وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دتك الشرع الدفاعي وحكم ده سجارش عروضة children seniors كدتك واوين disabled persons دتك عريان كا emotionally challenged individuals وصومالي أو قف أبي ويدي أنت الجورد اللي هذا لا داعي ولا بابي مسك هذا لقى خلينا يو religion دتك والو إلالية minority دين تين وإلالي سي دتك قالوا إن لا دجن إلا إلاليو color ما كوا أنا كنا جميل قالوا بيا ما كوا أنا جميل كوا قال كان أمانة noogu yimid oo amnigana warsaday ama nala soo degay ama martida noo ah ama fiisaha siinay waa la ilaaliyo color iyo qabyaalad iyo race iyo jinsi iyo wadankan waa la ilaaliyay inaguna qabyaalada citizenshipka iyo dhalashada waa la ilaaliyay dadka haliyada waa la ilaaliyaa qof waaridkii ka dhaxlay cudur waa la ilaaliyaa sakane ala kulli inta san kaga tagay Allah u gargaaro telefoon aad u fara badan baa igu soo dhacaya marka khayr ayaan idin rajeynaya walaalayaal. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين كنت تقول علي يلا سفر بانا نمضي.